موليه هي كفتن كرجي وندح مرة فرابضنا واحد عن مايا نيو مايا 4.5 بالغو قيب سدبين هذا 4.5 هو كو انت وانقرتي عاو إنها سنة وحسكا ورانينا وحي دعاي كدبت تجي منه كدبت تجي منه deegaankii xasan cali khayriye madaxweynaha way hambalyeeyeen waayo wax badan oo wanaagsan iyo ummadii Soomaaliyeedba baarlamaanka way hambalyeeyeen maadaama ay maxay tahay doorashada dadban diideen iyagii madaxweynuhuba dadkii nabad iyo nolol haddii ay kala jabeen waxa leeyahay waa idin doqonnimo xasan cali khayriye inagu meenu raacsanayn madaxweynuhu hadduu tagana ma raacsanayn inagu waxaan raacsanay xaqeena waxaan raacsanay one man one vote in raacsanay inaynu gacanteena baarlamaanka ku soo doorano oo xaqeena qaadanaaba inagu raacsanahay cid kasta oo doonaysa inaan xaqeena qaadano baawarka leenugu soo celiyo dadweynaha lagu soo celiyo ka maqnaa 30 sanadoodna kaasaynu raacsanay laakiin inagu shakhsiyaad kuma kala jabi karo hadduu madaxweynuhu caawa tago maqayba talo madaxweynaha si raacaysa oo madaxweynaha uu joogtay maqayba talo wasiirka arrimaha dibadda uu joogtay ilaa saasay noqonaysaa maqayba arrimaha gudaha uu joogtay maqayba gudoomiyaha baarlamaanka halkan uu joogto talo oo ku taageerta anu ma garanayo waxaas macnaheedu ka ra'iisul wasaare uu joogay ee ku sabooriyay ra'iisul wasaaraha xaafadayada ma garanayo de wuxuu joogayba iska tago cidluu la joogay kaasi ka wasiiru jooga cidluu la joogay ka madaxweynaha uu jooga inta uu jooga cidluu la jooga inagu qaram iyo xaqeena iyo xuquuqdeena ayaynu u joognaa cid kasta oo wanaagsana kaasaynu inagu la soconaa oo doonaysa xaqa dadweynaha inay dhacsadaan oo gacantooda ku cilbeelaan balag ragga matalaya maanta baarlamaanka fadhiya waxay yiraahdaan haddaad imika u tagto kuwa deegaankiina ka yimi adiga kugu matalaya 4.5 ko annaga ka nagu matalaya ayaanu la hadalnay wuxuu dhahay adeer lacag baan ku iibsaday yaad sheegaysaa inaad la hadlaysaan yaad leedin aad canaananaysaan adeer waan iibsaday kursiga mid kastaana waa sidaa deegaanu ka yimi dib uguma noqon waxuma qaban uma hadlin finish kuwii burca laga soo doortay annaga waxaa nagu matala 4.5 ka laba ayaa nagu matala midna guriga sare u fadhiyaa cidlada ah ayuu ku odaysay midna guriga dhexe labadiiba mucaarad bay noqdeen dowladday mucaarad ku noqdeen waa yaab anigu waan la hadlay waxay ugu dhayaad sheegaysaa aad la hadlaysaa arader meesha waxaanu ku nimi yaa xiriyaha yagaanu ku nimi adeer deegaan kumaanu iman bay ugu dhahdeen igu jawaabeen mid waan la hadlay midna cid baan u diray yaad sheegaysaa ku matala bay ugu yidhi eeg marka dadweynaha maanta hadlaya ee wax kala raacsan oo anu ma garanayo marka horeba waxa raacsanaydana meesha u joogteen 4.5 iyo idinka 4.5 ku idin khusayso waxa idin khuseeya cidda idin matalaysa ayaa idin khusaysa ummaday marka ka kora mid qabiilka yaga qabiilkiina hadduu wax qabto ku sabooda laakiin ma laha meesha isagu ma leh bari buu ka tagayaa saadan buu ka tagayaa waa la casilaya wasiirnimada laga casilaya gudoomiyaha baarlamaanka laga casilaya ra'iisul wasaaraha laga casilaya madaxweynaha haddii uu shaqo wanaagsan qabo waa la casilaya simple azad xasan cali khayrana waxa lagu casilay inagu ma doonayno doorasho dadban yaanu inagu la soconaa dadweyne horta marka ugu horeysa arwixii dad doorasho inoo qabanay one man marfood ama sanad ha lagu daro ama 6 bilood ha lagu daray xaqeena inaynu dhacsano kaasaynu inagu la soconaa baarlamaanka ma saboori jirin laakiin maanta waa sabooraya iyagoo hadday doonaan iska yar kororsiga waxa ha wataan laakiin waxaanu leenahay una gaarsiiyo one man word food haddii kale ma fadhiyaysaan meesha timeka loo qabta waa idinka dhantay taasi warka guud ee maanta ka socda dadweynaha iyo miidiyada ayaan ku gabagabeynaya waxaan soo noqonayaa anugu xaq ma u leeyahay waxay igu dhahdeen maya waayahay mahdi guuleed kumeel gaad 20 cishaa mooyaane xaq ma u leeyahay ra'iisul wasaare buura haddaan isagoo horeysiiya yes wuu leeyahay xaq shaqadiisa la arkay sharci yaqaanimadiisa la arkay dadku malaa hoos uma oga dawladda wax laaliyo wax shuruuca iyo tubta aragteen isaga diyaar gareeyay tubta aragteen iyo shuruucda isaga diyaar gareeyay shaqo wanaagsan buu ra'iisul wasaaraha la qabtay
وانا امسني رئيس الوزراء واحد بدن مو كاري كرين هدي انو مهدي قوله لا جوجن وانا شقه بدن اكسبيريان بو قاطي دسدو حقوق يلا واي marka shaqada muu soo qaadan raiisul wasaaraha waxay u leeyahay ku meel gaar 20 cisho ba xaq u leedin haa sidee ku dhacday anu 4.5 uma hadlayo iyadoo maanta 4.5 lagu joogo hadda waxaan u hadlayaa waqooyi goboladii waqooyi caawa goboladii reer waqooyi in badan bay gulahay warniyo maxaad anaga waadna garaacdaa une maxaad mar kale uga hadli weyday xaq iyo xuquuqda yani waqooyi shan gobol weeye kuma jiraan ba meelba kuma jiraan yani markaad eegto iminka waxay ku oranayaan madaxweynaha no waan ma yaday madaxweynaha iyo xagga hadalbani ma garanaysaa ra'iisul wasaaraha de saa leedahay waxaan ku weydiiyay aniga midnimada dalka iyo shakhsiga ama deegaanka la siiyay iyo ma weyn waxaan ku haddii aniga la iga dhigo caawa in ra'iisul wasaaraha reer waqooyi uu keeni lahaa waqooyi uu keeni lahaa waqooyi inta dalku dhibaatada ugu weyn ee dalka haysata waa kala maqnaanshiyaha dadku sidaa mala qaar badan uma oga kala maqnaanshiyaha dalkan baa ka muhiimsan wax kasta oo Soomaali maanta ay u diyaar tahay haddii anigayga idinla hadlaya ee wax kasta idinla wadaaga haddii caawa la iga dhigo waan iska dalbaday horta waan xareeyay arjiga haddii la iga dhigo waan not experience waan leeyahay dawladdu waan soo shaqeeyay xisbiyo ajaaniba baan ku jiray sida kuwa Norway ninkii labaad ee Soomaaliyeed ee galabaan hay koorsi loo diro why not laakiin waxaan ballan qaadi lahaa inaan waqooyi keeni lahaa waqooyi inaan keeni lahaa oo muddo bila awaliba ku keeni lahaa waxa ka muhiimsan ma garanaysaan midnimada dalka haddii ilaahay ka dhigo waa xitaa kuba guulaysto yaba caday qoranta ciidagama celinayso laakiin dadka waxa leeyay idinku igama celin kartaan oo igama celin kartaan adigu deegaamada ra'iisul wasaaraha ma tid deegaamada madaxweynaha adigu kama soo jeedid yaa yiri taa yaa hagbadan ku qaybsaday meel walba ma hagbad baa taala yaa seen inoogu qaybiyo wax haddii maanta la doonayo midnimada Soomaaliyeed la doonayo nin reer waqooyi u bisil oo kartideeda leh oo maxay ahaatay ku dhaceeda leh ayaa maanta la keeni lahaa ra'iisul wasaare la keeni lahaa ama madaxweyne simply طبعا ما rabaan dadku qabiil iyo qurun ayay rabaan yes 4.5 why not anaga 4.5 yaa noo diiday muhiimadda koowaad ee maanta inoo taala waxa weeye midnimadii dalka haddii waqooyi yimaado ogaada maamul goboleedadan goostay ee dawladaha noqday may shaqeeyeen wallaanay u shaqeeyeen been idin sheegi maaye haddii waqooyi oo israacsani iman lahaa oo la keeni lahaa nin madaxweyne ah ama ra'iisul wasaare ah ballan inaan inta kale maqnaateen isna geejiseen dawladda shayna la haysateen waa been anaa idinku yidhi way simply de inta ku simay waa la garanayaa inta ku simay yihiin waayahay balse waxa la igu yidhi adigu xaq uma lihid waan arkayaa deegaamaha xaq u leh madaxweynahana deegaamaha xaq u leh ra'iisul wasaarahana deegaamaha 4.5 ka waan garan waayay markaa oo markaanu 5 gobol xaq u yeelan weynay annagoo 5 gobol ah oo weliba midnimadii dalka soo celin lahayn markaanu xaq u yeelan weynay yaa xaq u yeeshay markaa يا حقيقي waxaan leenahay maanta madaxweynaha waan la kaftamayna madaxweynaha kaftanku inaga dhaxeeya isna uu kaftamaa waan leenahay madaxweynaha hadii 4.5 ki waxa ugu horeeya lagu qaybsanayo 4.5 waxa weeyaan waa cidda ugu horeysa ee aad gacanta u fidinayso waynu garanaynaa waa waxa weeyaan sooriyadii waa يعني gobonnimadii waa dhaqankii cidda ugu horeysay xeerada gacanta gelinaysa waa garanay gobonnimo dhaqankeena sidan ina faraya dhaqankeena ayaa ina odhanaya
cidda ugu horraysa ee xeedhadaad gacanta u gelinaysaa waa inay ahaato sax waa raacsanay waa gobonnimo iyo dhaqankeennii laakiin maanta 4.5 wuu soo dhammaaday wuu soo afjarmayaa 4.5kii waxaan leenahay aynu madaxweynaha ka codsanaynaa dhammaanteenba maanta waa maalintii waqooyi iyo midnimada loo fidayn lahaa ra'iisul wasaaraha waa maanta haddii madaxweynuhu uu kursiga nooga kacayo uu u fidaynayo midnimadana waa maanta yes waa maanta ayaynu serious u baahanay midnimadii maanta cid soo celin karto kartideeda leh waxaan leenahay ummadda soomaaliyeeday cid deegaan xaq loo siinayo maanta waxa laygu leeyahay mahdi 20 cishuun buu haynayaa ra'iisul wasaaraha la soo dooranayaa niman badan oo dowladda u shaqeeyo waan weydiiyey iyo qolo baarlamaanka ahiyo qoloyin madaxweynaha u tegey oo la soo taliyey waan isdhegaysanay waan ismaqlay waxa la raadinayaa hahey baa laga raadinayaa cid ya oo what about annaga waaba fadhinaaye waayo haddaa baanu fadhinaaye waayo ma 20 cishaan u qalanaayo keliya may waxaan leeyahay mahdi guuleed kama kacayo sabab mid wax kasta shaqo kasta midnimadii ka weyneed ayuu keenayaa annagana ballan qaadayna isaguna wuu ballan qaadayaa inuu keeno waqooyi 5 gobol oo waqooyi oo degmo yari ay ugu dambayso oo ku daba xidhiidhsan tahay oo gabiile la yiraahdo inuu keeno ummadda Soomaaliyeed gacanta ka soo saaro waanu ballan qaadaynaa wax ka weyn ummadda Soomaaliyeed ma garanaysaan wax ka muhiimsan arrinka بس ummadda Soomaaliyeed waxaaba uma jeedo midnimo iyo qarannimadii iyo maxay tahay ya awoodii iyo wax iska celintii iyo maxay tahay waxa miyaa la iska ilaaway imka arrimo kala la galay waxa laga dhigtayba barman baa laga dhigtayba in awoodda dalka baleeg maxkamadda sare waxa la yidhi waa reer waqooyi ayaa jooga maxkamadda sare awood ma leh amar baa la siiyaa maxkamadda sare waxaan in la dhiso 9 nin ee maxkamadda sare ee la baaraleel noqon lahaa baarlamaanka iyo fulinta la baaraleel noqon lahaa maxkamaddii sare waa fadhiid why because sidan baa loo qaytay oo laga dhigtay oo 4.5 loogu qaybsaday inaan awoodda baaraleelka aanay dhicin reer waqooyi baana mar kasta ku magacaaban maxkamadda sarena waxay ahayd saddexdan inay isku awood noqdaan fulinta madaxweyne ugu sarreeyo baarlamaanka iyo maxkamadda sare inay parallel noqdaan bay ahayd same awood inay yeeshaan oo ay madax bannaanaato maxkamadda sare ahayd wala diiday laakiin annaka lagu yidhaahdo iska jooga halkaa oo baafkana laga saaray waxay yidhaahdeen oo kale guriga sare reer waqooyi ayaa iyaguna leh guriga sare waa kee makan cidlada oday 9 jira intay noo fadhiisiyeen oday 9 jira kolba mid yar u soo dhuumanayo oo mucaaridi ayay noo fadhiisiyeen meesha oo cidla la jooga waayo de gurigan baarlamaanka dadweynaha gurigan baarlamaanka ayaa ummadda xukuumadda waa iska guri cidlaha faroolaya iska samaysteen inay iska fadhiyaan oo beeshinka halka ku qaataan maxaanu haynaa bal noo sheega marka la yidhi reer waqooyow dalkiina waana ka maqantii waana joognaa midnimadiina waa la rabaa de why not mid reer waqooyo looga dhigi waayo midnimada keena oo shuruud lagaga dhigo inuu keeno why because waxa looga dhigi la'yahay deegaamaha xaq u leh waayo magaranaysa deegaamadaasa xanaaqaya hadday xanaaqaanna waxba ma jirayaan marka waa dee sidan baa loo qorsheeyey waa maadaama sidaa loo qorsheeyey waxa weeye arrimaha isqardhaafaya waxba Soomaali uma soconayaan waa Soomaalidee ma wax midnimo ka weyn ayaa la rabaa in waqooyi yimaado diyaa la rabaa ummadda Soomaaliyeed bas soo qabtaan
yaa loo qorsheeyey oo loo qayday madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ahaa oo halkan bay ku xidhayeen hagbadaasi idinku kaasaa leedihiin idinkuna baarlamaanka guddoomiye idinkuna waryaa waa noo qaybiye waxan yaa ummadda soomaalida waxaan u qaybiyey ilaa xisaabtan waabay noqonaysaa soomaaliya waayo cadaalad darradu meel walba way gashay meel kasta way gashay waxaan isweydiiyaa waryow waa tan dalkii midnimo la doonaye maxaa nin reer waqooyi tafa oo isaga loo xil saaro inuu waqooyi keeno oo aan mudnayn 2 bilood mudnayn anigaygaa idinla hadlaya waqooyi 2 bilood iguma qaateen keenistiisu 2 bilood allaha arwaaxda bilaadan kaa sameeyey baan ku dhaartay inaan igaga batay waqooyi waa dhaar baan idin dhaartay keenidda waqooyi igagama ay badateen rag badan oo ciidaa ka mado ila midina way joogaan laakiin awood male waa la amraa bolisiga cidaas ra'iisul wasaarahaas bolisigiisa ayuu mad ku soconaysaa waayahay madaxweynaha shaqadii uu dhiibay ra'iisul wasaaraha si wanaagsan buu qabtay laakiin madaxweynuhu waxa la ra'iisul wasaaruhu de ciddii shaqada u dhiibay de magaranaysa hay waa sharaf xididku waa sharaftee waxa weeye laguma ciyaaro isagu dhagaxbay iyay saareen dalkii ra'iisul wasaaruhu xididka waa sharaf weeye waxa ugu horeeya ee aad magaranaysa suuriyada gacanta u gelinaysa waa sax wataa qof kastoo dhaqan iyo dadnimo iyo soomaalinimo waa ta saxda laakiin waa inay wax qabtaan ra'iisul wasaaruhu isagu qoladii gacanta u geliyay waxba may qabanba bangigii afkay ooda ka saareen wasaaraddii warfaafinta afkay ooda ka saareen safaaradii afkay ooda ka saareen wakiilnimadii iyo la talintii afkay ooda ka saareen way nala hadheenba laakiin madaxweynuhu qoladii uu keenay waxbay qabteen asaali khayreeyo waa sidaa caawa habeenkii kaftanka lama kala xanaaqaan waayo waaba gobonnimo anaa idiin qarayna gobonnimo tahay 100% waa raacsanay laakiin isweydiintu waxa weeye wariyaa noo diiday inaanu xaq u yeelano Soomaaliya wali ma la isweydiiyey kacaankii waxba ka sheegi maayo kacaanka ra'iisul wasaare iyo muulahayn laakiin malaayna looga kacday walay military ahayd laakiin ku-xigeenna la odhan jiray madaxweyne ku-xigeenno oo siman baa la odhan jiray 3 reer waqooyi way fadhiyeen inta ugu badan reer waqooyi laba ka fadhiyayba waxaan 2 iyo 2 dhan baa reer waqooyi ahaa ku-xigeenadii maxamed siyaad barre halka ra'iisul wasaaraha kale taagnaayeen ha xaq bay ahayd taasi maxamed siyaad barre allah yarxamay ayuunba xaq sameeyo ayaa noo soo celiya ilaahay de isaga soo noqon maayo mid isaga la mid ah ayaa noo soo celiya way cadaalad buu dadkan u sameeyay cadaalad dabatana sidaasay ku shaqaysay oo gobol waliba ku shaqeeyo ummadii oo dhan ku wala shaqaysay simply because adduunyada oo dhan baa gobolla ka soo baxda iyo councils ka soo baxda council laga tagaa ma jira adduunka waayo council kasta xaq buu u leeyahay dowladdan inuu ka qayb qaato way cid odhanaysa idinku gobolkiinaas xaq uma lihdin waayo dalkay ka tirsan dalkan waa gobollo isu tegay iyo dad gobolladaa degan weeye anu qabiilooyinkii waxaa ma jeclin wax lagu qaybiyo laakiin dadka gobollada waa in loo simo xaqa waxa maxaa tahay waxtarkana loo simo horumarkana loo simo shaqaalahana loo simo qabiilooyinna aan loo eegin yaraan iyo weynaan cali samatar baa noogu sarreeyey dalka cali samatar baa ugu darajo sarreeyey dalka siyaad bare cali samatar baa ka darajo sarreeyey ina maxaa tahay ina saleebaan dafle xuseen kulmiye ismaaciil cali abakar ina caynaasho guule dhammaanba cali samatar baa ugu sarreeyey dalka wareer yar baa leeyahay wareer yar baa cali samatar maanta maxaa la leeyahay cali samatar deegaankiisa miyaa xitaa kornayl la aragteen siyaad bare dabadii may miyaa aragteen dee may dhahdee waxaasaa cadaalad ahaa allah yarxamo kaasaa cadaalad haddaba inoogu dhawaa isagaana inoogu horreeyey cadaalad isagaana inoogu dambeeyey cadaalad caawa habeenkii reer waqooyiga waxaynu caawa u doodaynaa reer waqooyi 5 gobol oo halkan ku xidhan oo ku dabran oo ood afka laga saaray ayaa halkan ah we can't breathe reer waqooyi we can't breathe
وغوي مارا بكام ريف أروح أسمع شغال ناس صومالي هدي أنا كمان ليديدو وباتشلار بيكون حرام تعرف يا جامعة ما قشوية باتشلار واي اللغة ما تقانا ها لا ياس انت اللغة هي اللي قشقة يا حفيز وينات ولي واحد قاتل لبس النضوات وادمنستريشن ما قاتل هاندلو كونتور بالي هذا نوروي لبس النضوات ما قاتل ياس يا يدي ذكرى كرتدا كحرات سياد برا اللي يقول ماستر مسيدة هي بي اتش دي markaas aad shahaado way aragnimada yani wax ka weyn ma jiro markaad way arag waxaan u tahay waxa ba loo baahay karti iyo ku dhac iyo go'aan qaadasho go'aan adag waa intaasun shaqadu gebigeedu waa luqadana waa inaad garanaysaa inta qofka haysta daacad iyo wadani waa inuu yahay inaanu eex aqoonin iyo qabyaalad haye yaa da ii sheega anigu nin isamaanay waa riis nuugtay laakiin qaar badan baa saa igu yidhi adigu nin ra'iisul wasaarada saad leedahay uma qalantay adigu yahay ra'iisul wasaarada uma gaarin bay guraan marka waa inaad sheega dee hada ninka wadani anigu waan dee ma garanay waan soo qaana anigu qabyaaladana ma aqaano laakiin xuquuqda dadkana waan jeclay inaan simo waayo annaga waxaan la soo barbaariyey kacaankii barakaysnaa siduu wuxuu wadayna waa sidaan ula dhacsanahay ilaa maantana laysoo marsiin maayo dowladdii kacaanka ayaa xumaanba lahaydba xumaanba xasan daahir aweys baa ila soo xidhay ayaa igala soo hadlay arrimaha xasan daahir aweys waa aamusay xasan daahir aweys dib dambe ugama soo hadlayo dowladdii kacaanka dib dambe ugama soo hadlayo xasan daahir aweys eega idinku inuu ka soo hadlo waayo xaqiiqada xasan daahir wuxuu yidhi iyo wadaadda kaleba adu waxaad iska jeceshahay buu yidhi ayay farmaajo iyo dowladda maad iska jeceshahay marka siyaad barraad iska jeceshahay bay idhahdeen markaa siyaad barre markaad iska jeceshahay xumaantiisa ma arkaysid waxay xasan daahir weydiiyey iyo rag kaleba oo wadaadaahoo ka cadhooday arrintaa oo daba socda wadaadadii la toogtay iyagaa dib u qancay laba wadaadoo waaweynoo tiifiyada ka daawataan bay la soo xidhiidhay aniga iyagoo qanacsan oo qoslayo habbiya bay iga tageen waayo waxaan tusay runtaan tusay cadaalad iyo sinaan baa laga rabay wixii laga rabay madaxweyne inuu sameeyo I don't know dimuqraadiyaddani waxaan ma garanayo maanta waa dimuqraadiyad baynas hargeysa waa dimuqraadiyad bay sheegataa iyo puntland iyo dimuqraadiyad bay sheegataa jubbaland dimuqraadiyad in la doorto ay baarlamaan leeyihin la doorto ayay sheegtaan what kind of democracy we're talking about what kind of democracy dad dimuqraadiyadii ma dimuqraadiyad baynu dhaqanaa واحد ديمقراطية دلوقتي ديكتاتور بوها ويا ديكتاتور هين من كان مانتي يمي هاتي فرماتشيو مو يعني حقات كواركتين ديمقراطية خوايد سوماليس كده ما تنا وحلاها هاي مهدي محمد جوليد وإنه نقدر خيس الوسارة هدلك أنا قاعد كله هدي ما تلاقوا يراهدو ما أدو لبعتن عشيس كتشو كوي حق أولها أيا هديك لو إحنا كوي حق أولها بنو دينا وأنو صح حلينا وأنو كحلنا إيجا كوي حق أولها اللو قري حق ربي اللوجا قري حق الصومالي ده اللوجا قري حق من الله يوجا قري أيا نبارنا لكن ما هدي جوليد أدو لبعتك عشان نوسي يراها يمشى مارتي هرتشوجن نوسي هيا نوسي هاي intaanu dadkii xaqa u lahaa baadhayno noo sii hay mahdi guuleedow waqooyi life matter yes faarax geele wadani ku celceli waqooyi matter ya life matter yes waqooyi ra'iisul wasaare matter waqooyi madaxweyne matter waxaan leenahay maantana qaylo dheer aanu leenahay oo aan isugu tegaynaa ra'iisul wasaare رئيس الوزراء ولي بوحن لنا مدحوينها أفرت السنة مركا دميسرنو نو بني أنا كابنايسانينه بل شرعي قوري واحد مقالا 4.5 با شرعيين كوتشري هل قد ميلك كما تشري 4.5 وان باري شرعيا كونستيتيوشن كوان باري ميل كلي 4.5 كما تشري يا سمايستي دادكا ميل علاما لغا سمايستي وهودنا
ayaa inta laga samaystay ayaa li deegaanka iyo deegaankaasuma noqon kara yaa inoo qoray waar constitutionka 4.5 miyay ku jirtaa the aret am gather naadsanid yaa inoo qoray halkay ku qorantay waar labada deegaan baa noqon kara ra'iisul wasaare iyo madaxweyne halkay ku qorantay constitutionka ay sheega halkay ku qorantay 4.5 bal constitutionka ay ka soo saara bal waan gudbiyay CV-gayga xaqiiba balse inuu gaadhayso warmaayo intaasu baan ku dooray inaan wadare ahay inaan cadaalad ahay inaan maxay tahay inaan keenayo waqooyi midnimadan aan ka shaqaynayo waa CV-gayga iyo wixii shahaadooynaha yes waliba condition waxa weeyaan CV-ga ku gudbiyay qoraalka haddii mahdi guuleed laga dhigi waayo waa qasab in aniga dee laga dhigo markaa haddaa isaga sidan u garateen oo maanta laga dhigi waayo laakiin isaga noo musharaxa haddaan reer waqooyi oo dhan nahay ridwaana waxay adigu wasiirka warfaafinta ku wareysa is okay waayo haddii wasiirka warfaafinta laftigiisa is okay haddaan ra'iisul wasaare adag heli lahaa oo wax walba iga saboodha waqooyi hadal baan ugu soo dhammayn lahaa dee iyo warfaafintaan ugu soo dhammayn lahaa wax kastoo midnimada ku keenayaba oo samayn lahaa laakiin malaa wasiir iyo waxaa doonaya anigu annagu wasiiradii horaanu soo marray berigaa baawarka lahayd markaa imika wasiir iyo waxaa maayan ma qaadanayo laakiin midaanu sii geysana isaga waan u baahanay anigu waan sii geeyo haddii laga yeelayo markaa waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ay maanta waxaanu diyaar u nahay oo aanu eegaynaa oo aanu isha ku haynaa waxaanu il si wanaagsan reer waqooyi oo dhan haddaanu nahay xamarna waa tegaynaa waa isku shubaynaa reer waqooyi oo dhan haddaanu ishaanu ku haynaa in ra'iisul wasaare mahdi guuleed la yidhaahdo ku meel gaadh baatay simbale waxaanu eegaynaa bal dalkan inaan xaq ku leenahay iyo in aanu marti ku nahay labadaasaanu eegaynaa waana sabab sidee baa loo yidhaahdaa ciddii xaqa u lahayd ba xanaaqaysa haddaan iyaga laga dhigin haye annaga odaygan 90-ka jiray ee maxay haytay ay axmed madoobe iyo qaateen waar annaga nama matalo guriga sare waa sharci maaha qaar baa dee guriga sare joogtaan 4.5 guriga sare meel cidla abaadna fadhiisan cidla ayuu la joogaa maxkamadii sare sharciba maaha waa cidla wasiirka ka sareeya maxkamadda sare oo amar siiya waayo sharciba lagama dhigin maxkamadii sare xageba leedii waqooyi baa haysataan anagu qabiil uma kala ana qabiil ma nihin hadda qabiil kuwa kale ku qaybsateen aan sharcigaba ku qorayn wallahi constitutionka inaana ku jiri 4.5 kuma jirto constitutionka iga soo saar war arka soo saar ninka doodaya fariidka shuruuciyaqaanka iga soo saar halkay kaga jirto 4.5 ku waa halkay kaga jirtaa deegaanka ra'iisul wasaare xaq u leh waa kee xanaaqaya bal sheega وبل قلنا لك كنت تامي قلنا ديجان كحق أولى الرئيس الوزراء لقى سو حليو يجعل الله حريو حرام تيوكوي بريت جورجا سرها الجوريتشو هي محكمة لا هي ملاه كان ومالين تيادي كدقاق ماينو مدحوينان وحن لاني وان كل قرن قصانينا ما انت مهدي قوليد بان نوفردي اساقن وانو بلان قادو انو لباب بلود وقوي كوكينيو وانا جاي ادرانا يدي هاي والله دي اكستريم أنا بلا أنا قاعد درس رسالة بلا لا يقدر يجيني وعلي واقع استريم وماشي وغوي ويا وساق لك عيني يا مقراصة لكن كل غار بدل تستاجون هذا وات أدو مقراصة حاجة وغوي قاعد بدو كل شيء بري استريم بعد كنت هاي مركا ده واحد دور سنة ماشي مقراصة النساء تكسر الدو أنا قلنا مصلحات بعد الدور النابينا ما مصلحات بعد الله مصلحات بعد الله لفايستان مصلحات بات على وغوي وانا مصلحنا مصلحات بان كوكياننا وحن بان مصلحات بات على وغوي مصلحات بان كوكيانسا يا شن بقول او جوان ولا فابي تورتا كوسيتان markaas waxa la 500 oo jawaan oo kuwan anagu iska leeyno lafaa ay kulba soo gurayaan halkan meera store ugu xareysan ma 500 oo jawaan oo lafaa oo wada misig meedana waa 200 oo kun oo qof oo wixii dhimanayay ee xabaala lagu aasay أيه مكتوب سيدات كو كان كرتا مال كسد دين بكجلان إمارات كيو محايت الشركة دي أيه كجتشران دين كجتشران واحد كجتشران محايت جيبوتي أيه أو يجونا اللي ريج وان وجن مدحونا جيبوتي نيك دلكن كلها يا واسقة نبر كساري وقوي مرشور يدا كشداي حق بدل لنا قضاي وجنايو وجيبوتي ومدحونا جيبوتي
هو يكيني كرا حقبد يربا ماشي فريستي وأنت دورين بإن لقى كلا فرفربا أو دريا كو هايستا أنا أقول الله يدرى ما تصبح بكرة تجلها بين معها بين دي مشاكل وحنا نسيدهم كم يمانيا سيدا إذا أكلهم بكوي ما كرانو لوجو كيني كرا وقوي واي ولا بتولو سدح دقمو انت يربا درجة كويسة لا سعانا واحد لقى كان أفر توك يا لقى كان أفر جولا ميل بلقى كان وحوجي بالسيا لا صد عسكري بقول عسكري بقى كنت الله سيا هبين بقى كلو رجلا هبين بشت ملتني جنبي تركي قاسيب حلاه قدر ده كان عرقابة تورن الله هنا مالك استوى قوي شركة سمالي وانت صدق هذا كونه عسكري وقويبه شركات بس يبحر سلح البلود ده كلو قضيه يا معدن تودا يا كلون لو كان شركات كلونكا وقوي كلون بقى بوحه شركات فلسطين يا كلونكا كونترات لو سينا يا مدابك كونترات صدق هذا كونه عسكري هبين بقى كلو وريقيا يا علين كرا دريس كده حق كلو قشدا ما حق سومالي قريه والله الله بتجني عولبا هي سومالي كده تشرين هل هبين فاهم انت صار سمين كرواي وارد السلام يا مد سوماليدي waxaan leeyahay maantana caawana mahadi maxamed guuleed waa in ra'iisul wasaare qasab laga dhigo ra'iisul wasaare barmana waa in laga dhigo ra'iisul wasaare barmana ayaa laga dhigaya meel walba umada Soomaaliyeed waan maraya meel walbana markaan dhameeyo waan u gelinayaa Sakariya Nuur Saacin waa ka waad gelinaysaa meel kasta fasax baad u haysataa godadkaagii oo dhan ayay u gali jiray dawladaha iyo meel kasta yes خير وقوي ما أنت رئيس الوزراء هو إلا سياسي وقوي وكيران ما أنت ولي وانا مدحوينا وحلونا السجن نوجو در ما أنت سببتها أوديد أو نوجا مركا عفرت السنة دماتو نو بنيه أو نقول معسوم ولي بقى أو من ماذا سوماليا دوكا معناه هذا معها kuwa hargeysa jooga qool bay ku haystaan dadka milyaneer bay ka noqdeen cid ka kala furta iyo isugu timaada meel ka geyso way og yihiin haddii Soomaaliya lagu darsado aan dawladdu may fahmin haddii Soomaaliya lagu darsado degmay ku leeyihiin degoon maamul goboleeday noqonaysa way og yihiin waxaan oo dhan halkii maamuleed kale dadkan ay darayada ku haystaan golwadayaasha ku haystaan gobollo dhan bay leeyihiin maamul goboleeday noqonayaan هل دقمي دتك اللي بدك ما كله يهين بلديك دقم الله يراهضه يا دقم الله يراهضه وح كله باشي الله يراهضه قبيلي ويوجي يهين they don't have nothing and they are not gonna be nothing مركز الصومالي وين الله يراهضه سيدان بي يقول بدي سيدان بي كل رجال توجدان يا دعم يا خيامة يلفوا دوران كبي كل رجال وأكو هيستان ما يليان الصومالي وحلقة قدر ده وحب ما يليان reer soolba sagaal goor ku labalaamayya reer awdalba sagaal goor ku labalaamayya min lix degmay haystaan kuwani iyaguna laba degmay haystaan that's why aanad karayn inay yimaadaan lafoo dooroonkooda yar waxa shaqaalaha yar ee masaakiinta waxba waa iyaga waxa ay iibiyaan iyo waxa laale wixii buura ahaa ee macdan ilaa laga soo bilaabo berbere agteeda ilaa meesha la yiraahdo Mariye saasay u gurayaan oo Carabi ay u guraysaa dahab iyo wixii yaalay ay u gurayaan biyay ka yeelayaan iskaga dhexdar boqol halaad iyagoo hal guran wata nabayna yeelayaan ma yeelayaan laakiin maxay yeelayaan waran islaamiga umada Soomaaliyeed waxa la mahdi guuleed ra'iisul wasaare haddii uu noqon waayo waa haddii aan nagu leedin reer waqooyi shantiina gobol ma geydaan kursiga ma geydaan كلي واحد ويدينا ماشي كريستيش كده قرنتي إن عدلات هاي قاري ولو دي لو باريو واي لو باريا واي أنا قومي أنا حقول هاي كويجين بانو واي أنا نمادنا دي إك بلق أسكرتها وسير هذا مركز اللي بدلو وسير كويجين كأيا ماشي سلوري رايت أسكريغا مركز شان كماشي اللي بدلو كورنيل كيبا على صوت العسية مركز كورنيل كيبا ماشي اللي ديبا وايو ماشي بو يقانا أسكرتو يقانا وهي يقانا سيستم كا حروين كا انفايرمنت كا ميالها عدوغا وحنا ودن بو يقانا مركز كورنيل كي دقال قليها أيا هل كيسي اللي ديبا شان كمركز اللي بدلو ماشي وواحد كي لو شروع انترناشنال اسكت على ماشي واي أقوم بماشي الأولي هي أسكرتن دين كورنيل كيبا لكينا شان اللي قدقا tan xaq baan ugu leenahay
in laga dhigo mid ahaana reer waqooyi shantii gobol baan xaq u leenahay isaguna waa inuu ballan qaado inuu ku keeno 2 bilood waqooyi oo xaqoodii xuquuqdoodii ummadan hesho oo shirkada dahabka halka iska tuuran shirkada uu u keena mahdi guuleed oo shirkada ummadan la shaqaaleeya xaq baan u leenahay yaa naga celinaya siyaad bare siduu u tagay bal waqooyi oo kaliya yaan u doodin mar haddaan xaqa ummadda u doodo dulman eeg bal annaga waqooyi iska daayo dadka 18 gobol bedega ee agabooyaha u bixiseen anigu midgan baan u aqaanaa dadkaas midgan ayaan u aqaanaa ama halgan qabiilka halgan la yiraahdo weeye dadku mala wax bay ma yaqaanaan sidana ma yaqaanaan qabiilo halgan baa la yiraahdaa halgan dadkii halgamaya la yiraahdaa hal kuma laha dawladda Soomaaliyeed iyo waxa